madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu maanta ku eedeeyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose in talooyinka uu siiyo bulshada aanu isagu ku dhaqmayn. Hadalkani oo daba socday kulan uu maalinimadii shalay Dr. Gaboose la yeeshay shaqaalihiisa cisbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa. Haddaba Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka jawaabaya hadalka madaxweynaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay. aqoontan bartay waxaa taladeedu ka soo butaacaysa qalbi u nadiifo ummadayda, qalbi dareensan dhibaatada iyo colaadda iyo mushkilada dagaal ay soo socota, qalbi isiri kaalintaad qaadan karti qaado, ma ahayn mid ka soo gufaacaysa qalbi xanuunsan, ma ahayn mid siyaasadii hoosta kaga laban tahay ama kalar kale u yeeraysay. waxaan islahaa door nadiifa ka qaado maantay ummadaada waxaad u qaban kartid. waxaa mucjiso iyo ficisa igu noqotay madaxweynihii aan u hiilinayay in hiilkaygii ku noqday waran uu ka gami waayo, waran uu ka fariisan kari waayo, waran uu u qaatay sida dad badan ay ugu taliyeen ay ugu sheegeen in jaadkan iyo arrimahani Gaboose arrimo kale kale yahay oo dabin uu gelinayo. aad baan uga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay hoggaan dhan ee dal ee laga filayay qaranka milgihiisa inuu colaadda soo socota u soo dogo dalka, inuu u soo dogo dadka, inuu bacadlaha yimaado. bacadlahaagiibaa isdhex fadhiya, suuqiibaa isdhex fadhiya, maqaayihiibaa isdhex fadhiya, ummaddii oo dhan baa isdhex fadhida. madaxweyne kaalinkaaga bannaana Gaboose ee waxaa kaaga bannaan qarankan taariikhda inaad ku gashid xanuunkan dilaaga ah ee aan ninna reebayn inaad u soo daadegtid, hoos u timaadid dalka, maaha madaxtooyada iyo beertaada inaad ka hadishid. madaxweyne haddaan sawirka kaaga sheego, annaka dhakhaatiirta waxaa nala ku ababiyaa shaar cad baa nala ku ababiyaa, taasoo ah qofka haddaad doonaysa inaad wax u sheegtid xataa hadduu khalad ku jiro inaad wax la cuntid isagoo xanuunka aad cunaya ka qaadaysid. waxaa nala ku ababiyaa ina uu dareemo qofkaasi inaad qayb ka tahay. shaqaalaha dhaqtarkeed waxaa caado u ahaa sanadkiiba inay mar afuraan, habluhuna qol ku afuraan, dumarkuna ragguna meel kale ku afuro. madaxweyne shaqaalahan waa shaqaale dhiigooda iyo candhuuftooda iyo noloshooda, hadday tahay jonis, hadday tahay TB, hadday tahay wax walba, hadday tahay xumad, hadday wax walba tahay, waa dad haysta caafimaad buuxa haysta oo markay maanta ku qalayaan, markay maanta ku dul istaagayaan la hubo inaanay waxba u qarsoonin.